Ibas, ibas, Roniga aniga na ibas. Ibas, kubada aniga na ibas. ciyaarta kale ee egmada gaarka ah loo yeelanayayna waxay noqonaysay midii istaadiyaheeda Emirates Stadium iyo waqooyiga London ay ku macsuuntay kooxda Arsenal kooxda Victoria oo balays lahaa waaba kooxan waxba galin waxbana gudin hase yeeshee ku weeraxday kooxda Arsenal kala haatisay xidigihii kooxda Gunners waxaana ay noqonaysay habeen kale oo ay kala cadaatay taatiko xumada haysata macalin Unai Emery kooxda martida ahayd ee Victoria ayaa hoggaanka qabatay isla daqiiqadii 8aad ee ciyaarta ka gadal markii Tierney iyo sidoo kale Bellerin uu jeediyay leeciyay laacibka ku fashilmay kooxda Tottenham ee Marcus Edwards kaasi oo ugu dambeyntiina shabaqa soo taabtay. Cuts this back again, and surely this time, yes, they do have the lead. Marcus Edwards, the former Spurs academy player. What a story that is. Victoria have scored for the first time in the group, and Arsenal are stunned. Arsenal oo dhankeeda weli halkeedii ka sii waday xariiftanka isla markaana dhinac kasteeta looga gacan sareeyay ciyaarta haddii ay ahaan lahayd xag difaac qaddexe ilaa iyo weerarka ayaa dib waxa u soo nooleeyay laacibka reer Brazil ee Gabriel Martinelli oo madax la helay loob uu soo dhigay Green Tierney. Martinelli can't stop scoring when he plays for Arsenal. He's living the dream all right, the young Brazilian. And that's the first time we've seen Tierney. reer Arsenal waa farxeen laakiin farxadooda waxa ka kala daadiyay oo ciil iyo madax xanuun ugu bedelay Bruno Duarte oo shabaqa soo taabtay waxaana uu helay Benoni uu ku laagay goolka Davidson kaasi oo birta ku dhacay hase yeeshee u soo laabtay isaga oo jooga aag bannaan waxaana uu ku dhirbaaxay goolka halkaasina dhinac kasteetaba Arsenal waxa ugu cadaatay in difaaceeda weli uu yahay mid iska qashay labanay ah. To the Portuguese. Splendidly taken by Bruno Duarte. Another turn up for the book. Get yourself back in the game, Arsenal. dhinac kasteetana marka la fiiriyo qaybtii hore ee ciyaarta waxay ahayd mid looga gacan sareeyay Arsenal laakiin qaybtii labaad macalin Unai Emery ayaa dib ugu laabtay qaladyadii uu galay waana uu saxay oo maxaa yeelay wuxuu ciyaarta ku soo biiriyay madaalihii Guendouzi mucammirkii weynaa ee Dani Ceballos sidoo kale Nicolas Pepe oo isagana ka mid ah faahimiinta ugu wanaagsan caalamkan halkaasi ayuuna ka bilowday bandhigiisii ilqabadka lahaa kaasi uu ku kasbaday qulubta jamaahiirta Arsenal oo ka sii jeeday tan iyo markii uu ka yimid kooxda Lille laacibka reer Ivory Coast ayaana daqiiqadii 8aad ee ciyaarta laad xur ah oo loo dhigay isla markaana goolka u jiray ilaa iyo 30 tilaabo isaga lagu sharfay hase yeeshee iyadoo wareeganaysa wuxuu dhex dhigay goolka oo dhinac kasteetaba loo kacay Emirates Stadium oo maxaa yeelay wuxuu sameeyay ayaa ahaa lama filaan. In open play for Arsenal. That was class. And if anyone you wanted to see score a goal, the Arsenal fans, it was mar kale waqtigii dhimashada kooxda Arsenal ayaa mar kale loo dhigay hadana laad xur ah waxaana lagu sharfay laacibka la ciilciilayay baryahan ee Nicolas Pepe isaga ayaana siiyay goolka guusha waxaana ay ahayd meel ilaa iyo 23 tilaabo u jirta aaga goolka waa toogtay waana dhex dhigay Nicolas Pepe waana loo kacay mar kale Emirates Stadium waxaana ay wada yiraahdeen jamaahiirtii Arsenaliska kani waa boqorkii reer Afrika sidoo kale waa boqorkii Ghana. It is Pepe and it is in. What about that? What an amazing finish. It's the Nicolas Pepe show in North London.
Simply stunning. dhinac kasteetaba waxay ahayd ciyaar mucjisadiisa kubadeed uu ku soo bandhigay laacibka reer Ivory Coast ee Nicolas Pepe oo noqday laacib daal iyo ciilba la kulmay tan iyo markii uu yimid kooxda Arsenal isla markaana ku dhibtooday in uu la qabsado hase yeeshee 2 gool oo darandoori ah guul la siiyay kooxda Ghana ayuu dhinac kasteetaba u dhaliyay kooxda Arsenal ayaana xijisatay kala saraynta hoggaanka horyaalka groupka F iyagoo haysta ilaa 9 dhibcood waxaana 3 dhibcood ay ka sareeyaan kooxda ku jirta kaalinta labaad ee Frankfurt oo iyadana guul 2 gool iyo gool ah ka gaadhay kooxda Standard League. Nicolas Pepe ayaana isku qoray diiwaanka Europa League waxaana uu noqday ciyaaryahankii ugu horeeya ee 2 laag oo toos ah dhaliya hal ciyaar oo ka tirsan Europa League tan iyo Luis Suarez oo sidaasi sameeyay isaga oo jooga Liverpool wajahayna kooxda Zenit bishii February 2013 sidoo kale dhinac kasteetaba Arsenal waxaa ku ciishan waqti xaadirka kan laacibka reer Germany ee Mesut Ozil halyaygii hore ee kooxda Manchester United Paul Scholes isna dhinac kasteetaba wuxuu ku taliyay in United ay u dhaqaaqdo laacibkan laga nacaynayo Emirates Stadium. Paul Scholes ayaa ka mid ahaa ciyaartooydii ugu muhiimsanaa ee qadka dhexe kooxda Manchester United waana nin wax badan ka yaqaana hanan ciyaareedka qadka dhexe iyo sidoo kale ciyaartooyda aadka u awooda badan isagoo la hadlayayna PT Sports waxa uu yiri waan fahmi la'ahay sababta looga reebo Arsenal Mesut Ozil waxaan qabaa in uu yahay xidig kooxda isku xiri kara waa ciyaariyaan tayo weyn leh wuxuu taasi soo bandhigay waayihiisa ciyaareed oo dhan wuxuu noqon karaa xalka Man United ee muddada gaaban isaga ayay ku xiran tahay haddii uu doonayo inuu galo tartan cusub uma malaynayo inay dhici doonto laakiin waa ciyaariyaan ku habboon kooxda Manchester United ayuu dhinac kasteetaba tilmaamay Paul Scholes oo ka gubanaya waxa ku dhacaya waqti xaadirka kan laacibka asal ahaan ka soo jeeda Turkiga qaatayna dhalashada Jarmalka ee Mesut Ozil oo waqti xaadirka kan noqday laacib xitaa aan saaxiib la ahayn kursiga kaydka oo had iyo goor uu difiro waxa uu yahay Macallim Unai Emery dhinac kasteetaba lama dhacsana Ozil waxa ku haysta Emirates Stadium oo isagana waa ciishoon yahay inkastoo sidoo kale ay xiisaynayso kooxda Barcelona ee ka dhisan gobolka Catalonia. haddii aad ka heshay muuqaalkan like sar haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe sar gambaleelkana furo si aad ula socotid muuqaaladeena. Assalaamu calaykum.